waa mahadsan yahay Ustaad Cali oo nooga imaaday Wajeer. waa ku mahadsan yahay. waxaan soo dhaweynaynaa waalidiinta hal qof iyo laba qof dhinaca ragga, dumarkana sidii lamid ah waqtigiina waana gabaabsi. waxaan usii gudagelaynaa dawaadhiga la bixinayo. marka waalidiinta hal qof waa magacaaba mise waa soo kacaya waalidiinta hal qof. gabdhaha nimanka haya مريم كريم تجي وعد سوين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دمان كسو قيب قلياشة iyo waalidiinta waxaan leedahay waa salaamintiin dhamaantiin. waxaan arkaynaa aniga hadda kahor weli kama qayb galin xalfad noocan camal soo shoog ay u tahay farxaddan oo kaleeto oo ilmahan tababarka la siinaayo. waxaan arkaynaa in dhalinyaro wiilal yaryar wax la baraayo, gabdhihiina ay meesha ku yihiin. annaga ugu daro ugu baahan sama waxaa yaa u baahan tababarka noocan camal yaa u baahan. annaga ugu baahan wiilashaan haddii aan nahay gabdhaha inay bartaan annaga ugu baahi badan. aniga dhibaatooyin fara badan soo wajahdaa sanadaha ugu dambeeyay wili anaga u dhib badan. dadka ugu dhibka badan u baahan tababarka noocan annaga waaye. hadda waxaan arkaynaa gabadhan yartaan arkaynaa maasha allah aad aan ugu bogaadinayaa. waa ugu hambalyeynayaa sida quruxda badan ay qayb nooga noqotay iyada laftirkeeda. marka waxaan leenahay waan ku faraxsanahay xalfadan quruxda badan nooga yeerteen aan kasoo qayb galnay. waana ku mahadsantihiin gabdhaha waalidiinta. waxaan leenahay gabdhaha kasoo qayb galeen ani saan u arko gabacdina kasoo qayb galaa laftirkeega adiga xisaaba anay dhiga xisaab inaan kasoo qayb gala. waa mahadsantihiin. مريم ومحسن طيب وكده وينتين gabdhahana kasoo qayb galaan. I have just one point to mention convey to people. When you say normally when ladies do something, people become very happy. This girl went to Elua and participated in Mashujaa Day. Mark Jamat Muhammad Khalif and the Islama and all the whole governor just stand because of this girl. Ali Pata 16,000 contribution from those council officials. That means msichana ako na opportunity kuliko sisi, si ndio? Wanaume wako wengi siku hizi, lakini msichana sasa, ukileta msichana yako atafaidika. Number one, atapata self defense. Number two, she will going to get what we call self confidence. Anajiamini, msichana anajiamini.